الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، مقعي هو محمد خليف معروف ماهن خالد. وهرين وحن سلام يا حلبانada فدرالكا حلبانada maamulka galmudug martida kale ee ka socota dawladda federaalka iyo dawladaha dariska saxaafadda xisbiyada kale ee ku sharfan madashan xoghayaha guud ee xisbiga daljir waxaan u jeedaa gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliyeed waxaan salaamayaa dhammaan dhalinyarada xisbiga daljir iyo cid walba meeshan lagu madlay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh anigoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho wixii soo socday muddo sanad ku dhow ah oo ah dhalinyarada dhismaha garabka dhalinyarada gobolka Banaadir ee xisbiga daljir runtii muddo sanad ah waxaa soo socday qabanqaabada dhismahan garabka dhalinyarada gobolka Banaadir ay wadeen dhalinyaro Soomaaliyeed waxaan aad ugu mahadcelinaa dhalinyarada ku dhiiratay ee iska diiwaan gelisay xisbiga ayadoo ay ahayd bilow fiican oo aysan jirin wax xisbiye kale oo looga daydo nidaamka noocan ah in dhalinyaro inta iska diiwaan gelisa maamul dhexdooda loo dhiso aan u maleynayo inay tahay xisbiga ugu horeeyay hirgeliyay nidaamka noocan ah waxaa bogaadin u dirayaa dhalinyaradii iska diiwaan gelisay qaasatan guddigii qabanqaabada oo soo bilaabatay ilaa iyo markii la unkay ama ay bilaabatay isdiiwaan gelinta guddigan ayaga oo qabanqaabinayay wax walba oo ka dhaca dhalinyarada dhexdooda ah haday ahaan lahayd doorasho iyo haday ahaan lahayd nidaam kale wax walba waxay ku xalisteen dhalinyarada si ay ku jirto Soomaalinimo islaamnimo iyo dimuqraadiyad ayadoo aysan dhicin musuqmaasuq ama wax iska hor imaad ah aysan marnaba dhicin wax guddiga guud ama golaha dhexe ee xisbiga guud uu soo farageliya dhalinyarada waxaan ognahay waxaan la yaabay dhalinyaro bilow ah ee aan dimuqraadiyadda aqoon ee nidaam doorasho iyo waxaas oo dhan aqoon haddana sida ay isku doorteen ay intaan oo dhan u soo daadiyeen barnaamijkooda ay ugu dhabar adeegeen waxaan isweydiiyaa maamul kasta oo wadankan laga dhiso ee ka hana qaada ama dawladda federaalka ama maamulada dariska ah maamul walba wadankan ka hana qaada dhismihiisa waxa goobjoog u ahaada beesha caalamka United Nations international communities يعني waxayna tusaysaa odayaasha ma dhaliila odayaashana inaysan kaligood waxba qabsan karin يعني instead anaga kaligood waxaan karin waxaan leeyahay golihii dhaqanka joogo odayaashii dhaqanka la xulaa xilbaanadii federaalka joogo dariskii Djibouti waxa dhan oo imaanayo andan waxa loo baahnaa dadana Soomaaliya ku hadlan waxa la leeyahay waa inay goobjoog u ahaadaan waxa soo dhan shuwa waxa ah dhammaan garabka dhalinyarada waxay ka dhacay waxa goobjoog u ahaa oo kaliya dhalinyarada xitaa xisbiga golihiisa dhaxmay ma waxay noqon kartaa tusaale ay u noqon kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay kaligood wax qabsan karaan wax dhisan karaan dawladnimo iyo dawlad wanaag xitaa heer aan isku doorano vote for one man vote xitaa inaan kaari karno anaga kaligeed so anagu waxaan dareensanahay haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed dadka u soo baxaya wadankan aqoon-yahanada maanta mas'uuliyiinta maanta dadka maanta iskale inay xilka qabtaan ay u taliyaan wadanka waxaan dareensanahay inaan isku filannahay ee aanan u baahnayn international communities iyo United Nations wax walba aan anaga kaliya qabsan karo waxaan leeyahay marka waxaan ku baraarujinaa dhalinyarada xisbigan iska diiwaan gelisay runtii waxa idin taalo hool adag iyo halgan dheer ee siyaasadeed waxa aad meeshan u imaanay waxay tahay inaan door weyn ka qaadano halganka siyaasadeed ee wadankan ka jiro wadankan waxa ragaadisay siyaasad xumo ku dhisan khabiyaalad iyo musuqmaasuq waxaan diyaar u nahay haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa soo dhan inaan bedelno annaga oo ku tashanayna aqoonteena cilmigeena iyo Soomaalinimadeena wax walba inaan annaga kaliya noqon karno waxaan aad ugu mahadcelinaa guddigii doorashada guddigii dastuurka aan hilmaamay
dhalinyarada kaligeed dastuur umkatay kaligood ay qorteen lama geynin Djibouti lama geynin Nairobi kaligood ay qorteen kaligood ay fadhiisteen way ansaxsadeen and then waan isku dhaqaynaa waxaas oo dhan annaga raali isaga waxayna tusaysaa Soomaalinimada meesha ay naga marayso maanta waxaan leeyahay marka dhalinyaro horad u socotaan insha Allah waxaan isku ognahay waa guul iyo horumar iyo daacadnimo inaan wadankan wax ugu qabanno waxaan u istaagnay inaan badbaadino wadankan siyaasadda wadankan aan meel fiican u hagno way noo muuqataa guusha yaan la daalin aan leeyahay wabillahi tawfiiq